سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن إدي لهانتين كسور دواد والاليال كورسكيني HTML وانو ستحانا وقباهينو channel كامل ترينين. waxaan maanta qaadan doonaa haddii Allah awood la idmo casharkeennii shanaad. casharkeennan maantana waxa uu daaran yahay isla markaana aan ku qaadan doonaa saddex taag oo muhiim ah. taaggaasina waxa ay kala yihiin BR iyo bida kulul iyo taagga u dambeeyo ah HR. saddexdan taagba waa taagis in badan kusoo noqnoqda luqadda programming-ka khaasatan HTML-ka website-riskuna ay aad u isticmaalaan. waxaynu ku horeynaynaa BR shaqada ay qabato iyo faa'iidada ay leedahay iyo baahida keentay in la isticmaalo ayaynu eegi doonaa. waxaynu aadaynaa page-kii aan ku soo sameynay casharaantii hore ee afartaa. page-kii markaan nimaadno intaas hore waa intii aynu ku soo sameynay casharaantii hore. halkan ayaynu ka bilaabeynaa shaqadeena. xoogaa line baynu hoos u tegaynaa. halkan markaan nimaadno qoraal aan soo copy garaystay ayaan halka ku paste garaynayaa Ctrl V. waa qoraalkan waan u jeednaa waa qoraal badan. bal page-keenan ayaan save garaynaynaa Ctrl S. waxaynu ka soo kicinaynaa browser-ka. browser-kii waan imaanay waa kan. hoos haddii aynu aadno waxaan arkaynaa qoraalkii aan soo gelinay aan haddeer ku paste garaynay editor-ka. qoraalkeennii haddeer wuu hoos yaalay balse imaka waa uu isku hor qoran yahay oo yacni line dheer ayuu raacayaa oo ma laha wax break row. hadda ayuun baynu fahmi karnaa shaqada ay qabato BR. hayaan ku laabano page-keeni. editor-ki waa kan. meel kastoo aynu rabno inaynu break row ka sameyno imaka halkaa seexshay waxaan rabnaa inaynu line-ka kale ka bilaabno. nin idaaqsanayana maxaan daafiga u kariyay. hadda waa line-ka aynu rabno inaynu hoos uga degno seexshay. line-kan sidaa uu yahay haddii aynu rabno inuu uga soo baxo browser-ka waxaynu sameynaynaa line kastaba halka aynu rabno inuu ku dhammaado ayaa waxaynu dhigaynaa taagga loo yaqaano BR. anita iskaba copy garaysto Ctrl C. line kasta halka ku dhamaado baan ku copy garaynaya Ctrl V. saas ayaan ugu wadayaa ilaa inta aan ka dhamaystirayo. inta aynaan u gelin bal isbedelka dhaca markaynu browser-kii refresh garayno. bidu waxay u taagan tahay breaking halka r-tuna ay u taagan tahay row oo markaa qeexaysa marka la isku daro in la kala jabiyo line-kii oo lagu sameeyo break row yacni in la hoos dhigo. waayahay Ctrl S. browser-kii ayaan aadaynaa. waa refresh garaynaynaa. laba hab oo aad u refresh garayn kartaa inaad halkaa riixdo iyo inaad isticmaasho shortcut F5. waayahay qoraalkii hoose aynu soo aadaynaa. qoraalkii aynu hadda kusoo marnay isku hor qornaa hadda waxa uu noqday tabtii aynu rabnay waxaana ka dhigay taagga BR. waxaan filayaa taagga inaynu fahnay shaqadiisa iyo waxa uu qabanayo. waayahay taagga xiga oo B ah. isla qoraalkeennan ayaynu ku sameynaynaa isbedelka. halkaa uu qoraalku kasoo bilaabmay waxaynu ka furaynaa taag loo yaqaano B. taaggii halkaasaynu ka furaynaa. waxaynu kasoo xidhaynaa halka u dambeysa qoraalka. taaggii halkaas ayaan ka furay halkaana waan ka soo xidhay. waayahay
haddaba taagani muxuu faa'iideynayaa oo qoraalkeenan ka bedelaya? horta lambar 1 waxaad ka bedelaysaa inaad qoraalkan kalarkiisa bedesho, inaad size-kiisa bedesho, inaad farta nooceeda bedesho adoo aan adeegsanayn taagiskii aynu hore u soo marnay ee fontiga, taaga fontiga lagaga bedelayo. dabcan halkana waad kaga bedeli kartaa, laakiin badanaa inta la isticmaalaa waa taaga b-da. halkan ayaad imanaysaa, waxaad dhahaysaa style, inta space baxdo adoon xayndaabka dhaafayn, style markaad tiraa equal quotationskaasaad furaysaa, kadibna waxaad ku qoraysaa color, labadaa dhibcood aan rt raaciyo, artaasaan ka booday, red waayahay, control s. browserkii ayaan dib ugu laabanaynaa, waa refresh garaynaynaa. waka qoraalkii casaan ayuu noqday. waxaynu siinaynaa marka kale xiga, waxaynu bedelaynaa xajmiga farta, waxaynu qoraynaa amar la yiraahdo font size, laba dhibcood, okay. bal haynu eegno isbedelka kale dhaca. aynu save garaynaynaa control s marka hore. qoraalka waxaad moodaa inuu yaryaraadayba, aynu size-ka kordhino, waxaynu ka dhigaynaa 20 ba ka dhig, ama 25, 25, control s. waka qoraalkii haddeer uu soo waaweynaaday. isbedeladaas ayaad ku samayn kartaa adoo adeegsanaya taaga b-da. faa'iidooyinkaas ayaanu leeyahay. amarka kale aynu siinaynaa waxa weeye font family, oo farta nooceeda inaan bedelno. labadii dhibcood, papers waa far aniga igu jirta, control s, waa refresh garaynaynaa. fartii way isbedeshay. waa amarkii saddexaad ee aynu siino inagoo adeegsanaynaa taaga b. marka taaga b faa'iidooyinkaas ayuu leeyahay, waxyaabahaas ayaad uga faa'iideysan kartaa. waxaan u gudbayaa taaga xiga ee ah hr. si aynu u aragno, waxaynu tegaynaa qoraalka hore aynu soo samaynay iyo kan cusub dhexdooda, waxaynu halkaa ka furaynaa taag loo yaqaano hr. markaynu furno isagu uma baahnaa in la soo xidho, intaas unbuu ku eegyahay. control s. browserkii ayaan aadaynaa, waa refresh garaynaynaa. waxaa kusoo biiray labadii qoraal dhexdooda linekaas. linekanna waa line in badan la isticmaalo, waxyaaba badanna loo isticmaalo. waynu arki doonaa waxyaabaha loo isticmaalo. taagan laftarkiisa waxyaaba badan baa laga bedeli karaa, kalarkiisa la bedeli karaa, dhumucdiisa la bedeli karaa. bal haynu intaba ku eegno. color baynu ugu horreysiinaynaa, color, equal, waxbaan khalday baan filayaa, inuu ku saxan yahay. control s, refresh gareeyo. green buu noqday, markii hore waxaan filayaa madow buu ahaa. bal dhumucdiisana haynu wada eegno qaabka loo bedelayo. amarka color hortiisa ayaan imanaynaa, waxaan qoraynaa size equal 15, size-kiisa ka dhig, control s. refresh garayno browserka. aad ayay dhumucdiisu u weynaatay. hadba adigu inta aad rabtaad ka dhigan kartaa, size-ka adaa isu haya oo maaha wax xadidan oo intaad doontaad gashan kartaa. taagan bal meelaha loo isticmaalo waxaa kamid ah website-yada. footerka hoose inta ay ku qoran tahay copyright waad ku arkaysaa linekaas. bal haddeer website
aan ku sameeyey HTML ayaan eegaynaa. waa kan website-ku, waa kan HTML iyo CSS kaliya ayaan ku dhisay. waa kan line-ku midabka liimiga uu marsan yahay. waxaa inoo muuqataa line-kan in la bedeli karo position-kiisa, color-kiisana aynu hadda soo aragnay, dhumucdiisana isla sidoo kale hadda aynu soo aragnay. waxyaabahaas oo dhan waxaynu ku arki doonaa CSS-ka iyo qaabka website-yadaba loo sameeyo insha allahu tacaala. maanta casharkeenii 5aad oo aynu ku baranay 3 tag halkan ayaynu kusoo gabagabeyneynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.